dhegaystayaal marba haddii cumar ati haadda lagu cashaysiiyey maweesaa dhowran rag allow maxaa dhici doona ayaa la iswada weydiiyey wiilashiisii tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye maxaad aadan galeer ka filaysaa oo waa ninkaad ogeyde waa ninkaan sheekooyinkiisii qaar kuu hormariyee waa kibir hadalka ninkii badnaaye muxuu yeeli doonaa cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay wuu ismadax maray wuu qaadan kari waayey marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagarqabo ahaa in maxamed cabdille liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn dartiis ku makalay kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday tulud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo intaas oo idilba aadan ma xusuusan maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruuxuu dhalay in la dhangadayn karo iska daa in la mawtiye dhinaca kale dhalinyaradii ay cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday waxaa ugu daraa barbaar ay kala baha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroora oo dhiiggu da-ayo bilowgiiba tixfariina ayuu walaalkii ugu diray xabaashii dhawaanta la geliyey isaga oo u ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono wuxuu yidhi wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontaaye haddeed iyo haddeedahan haddaad habaqla mayd weydo ifka igu habaar cumar haddaan hibashadaa raagin maalin kalena fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray isaga oo toos ula hadlaaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doono iyo guud ahaan colaadda ba-an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono wuxuu yidhi cidka da-aya cumarow rag baan calaf u laabnayne aan caafimaad iyo sugayn caano darareede ciiddaba maraha waa la rogi caawa dabadeede oo cudurahooda isku jabi nimanka ciideede kol saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar caloolxumo iyo tiiraayo miirani ay ka muuqdaan kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar ati dilkiisii ku iloobi karayn markaas buu yidhi saajicii cumar aadan silicay u dileen baarqabkii ina seenyo suudigay ku qasheen saddex jeer noqodkii wallee saa ma ilaawo geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku shareertay odayadiisa majeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan gabayl soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay waxay istuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn inay baatiyaan ayay tala ku goosteen markaas bay gooyeen nimankii cumar dilay markii koodii la duudsiiyey in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga laga soo ogaado waxaa ergadaas hormaray nin la odhan jiray cali baar gooye oo dagaalyahan ahaa isla markaasna aftahannimo iyo ergayahanimo labadaba ku tilmaanaa dhowr cisho kadib ayuu cali ku soo noqday halkii laga diray durbadiina shir weyn ayuu wacay saa waa la soo dhoobtay nin hebel la yidhaahdaa ma maqna aadan galay wuu fadhiyaa inamadiisii oo caro iyo ciil daraaddood salka dhulka ku hayn li'ina way joogaan waxaa isna goobjoog ah qoorwaa jaamac oo aadan ay ilmaadeer ahaayeen isaga oo da-ahna umaamadkii hore ee daraawiisheed soo gaaray wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya hase ahaatee sida ina galayd u xuslinta nabadda looga fiicnaa cali baar gooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa waa la dheerayoo waa la sugi la-yahay isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado
oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo salaan hadalka uga kala goyn. shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay, warkiina ku bilaabay: ragow, waxa aanu maanta wadno nin waalan iyo ninuu wadkiis galay ayuunbaa diida. wiil hooggii makaadsadaha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey, cumarna ay isxigeen, ayaa inta soo booday yidhi: war ararta naga daayo, noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay. cali baargooye wuxuu ku jawaabay: 3 arrimood ayaa nimanka ka wadaa. waa marka koowaade ninkoodii oo ay duudsiyaan, magtiisiina ay ka haraan. waa marka labaade cumar aadan oo ay 120 halaad ka bixiyaan. waa marka saddexaade tolka oo wixii dhacay ka heshiiya. wiil hooggii makaadsadaha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey, cumarna ay isxigeen, ayaa inta kol labaad soo booday wuxuu cali ku yidhi: maxaad adigu kaga talin lahayd? cali baargooye wuxuu ku celiyey weedhii uu hadalkaba ku bilaabay ee ahayd: waxa aanu wadno nin waalan iyo ninuu wadkii galay ayuunbaa diida. qoorwaa jaamaca oo kaalkiisii inkaaraa gelgelaya ayaa su-aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey. weedha ah hoyday ayuu halhays u lahaaye wuxuu yidhi: hoyday, cumar aadan oo nool ma la helaya? cali baargooye wuxuu ku jawaabay: maya. saa qoorwaa baa yidhi: haddaba nabadna la heli maayo. dabadeed aadan galayl baa kacay oo inta hadalkii boobay yidhi: ma waxaan qoorwaa idhi, mase waxaan ninkaa nacabka ah ee fariinta keenay idhi? qoorwaa waxaan idhi: ina adeerow hadalka tidiya ha igala noqon, oo ragguu weysgadiyaaye weedha aad maanta tidi beri iyo weligaaba ku adkayso. ninkaa nacabka ah ee fariinta sidee waxaan idhi: tala iyo tabartoona kaagama baahdiye, wixii aad itali lahayd adigu istar. laguma raagine degdeg baa geedkii markaas looga dareeray, iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lasa marayn karaayo. cali baargooye ergayahankii taladii uu keenay haddiiba lagu diiday, ciil buu la caraabay. sidii nin waxa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geyigii jilibkiisu deganaa oo idil, reer aadan galaydna ay ku jiraan 10 geedi ka durkay. maxaa xigi? maxaa la kala mudan? kala soco qaybta 5aad ee sheekada adduunli khatar iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo.